waxaan rabaa marka hore inaan u mahad celiyo General Bashir taliyaha ciidanka booliiska General Abdulrashiid taliyaha dugsiga tababarka General Kaahiye iyo tababarayaasha halkan maalin walba iyo bil walba iyo sanad walba tababaraya ciidankeena macallimiinta tababaraha qof walba oo qayb ka qaatay inuu ka shaqeeyo munaasabadan maanta aan halkan isugu nimid aad iyo aad yaan runtii idinku mahad celinaya waxa maanta sharaf weyn ii ah inaan idinkala soo qayb galo munaasabadan bilowgeedaan ogaa oo ahaa in aan tababar u furno dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka soo jawaaba dalabkii aan ka dalbaday ama baaqi aan ka dalbaday in ay u jawaabaan qolooyinkii horarka ahaa ee sanadkii la soo dhaafay October 14keedii naga xasuuqay dad aad u far badan oo shacab ah oo waxba galabsan dad aad u far badan oo shacab aan halkaas dhaawacyo waaweyn ugu geystay dadkii ka soo jawaabay baaqaas oo yiri diyaar waxaan u nahay inaan nafteena u hurno dhiigeen u daadino waad mahadsantihiin inaan maanta taaganahay inaan maanta taaganahay oo inoo tahay maalin taariikhi ah oo aan kulligeed markhaati ka wada nahay inay maanta dhamaystirteen oo ay yihiin dufcaddii ugu horreeyay oo runtii mutadawiciina ama naftood hurayaal ah ama volunteers ah u taagan inay dagaal la galaan oo ay difaacaan dalkooda oo ay difaacaan diintooda oo ay difaacaan dadkooda aad iyo kulligeen sharaf weyn inoogu tahay maanta inaan markhaati ka nahay waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo qof walba oo idin ka mid ah waa noo tirsan yahay qof walba oo ciidanka qalabka sida ka tirsan waa noo magacaaban yihiin waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo marxuumkii idin ka midka ahaa ee ku dhintay halkan isagoo ku jira isagoo u socda meesha u socotaan oo ah difaaca qaranka oo la oran jiray marxuum Maxamed Cabdi Ibrahim Xasan Allah u naxariisto jannadiisii naxariistiisa Allah siiyo qof walba waa dhiman xabad kaliya wax ma disho qofka waqtigiisana ma dhaafo waxa weeye qofku wuxuu kala doortaa inuu ku dhinto si sharaf leh iyo inuu qofku ku dhinto si dullinimo ah oo gunnimo ah inuu dhinto waxa doorateen inaad u dhimataan si gobonimo leh inaad u dhimataan oo haddaad dhimanayso oo Ilaahay waqtigaagu uu meeshaasi ku ekeeyay inaad u dhimataan si sharaf badan idinkoo difaacaya diintiina idinkoo difaacaya dalkiina idinkoo difaacaya dadkiina idinkoo difaacaya deegaankiina inaad u dhimataan oo waxa idinka dambeeyo caruurtiina ah ay ku noolaadaan sharaf iyo karaamo iyo xurmo ay ku noolaadaan aysan ku noolaan dullinimo iyo gunnimo iyo qabjabnimo inaysan ku noolaan waxa halkaan iga muuqda oo la soo maxaan ku radaa tababaray ciidan diyaarsan ciidan nidaamsan yaa halkaan iga muuqda oo diyaar u ah inay dalkooda ka xoreeyaan horarka nabadiidka ee al-shabaab ee khawaarijta ah ee nagu soo duushay ee dalkeenna tafaha haysa lugaha haysa oo diidan inaan la tartanno caalamka intiisa kale oo maalin walba caruurteenna gabdhaheenna hooyooyinkeenna odayaasheenna xasuuqaya oo sheeganaya islaam oo banaystay dhiigeenna Soomaali waa dad sharaf leh ama dad sharaf jecel Soomaali waa dad geesiyiin Soomaali waa dad wadaniyiin san u yiraahdo Soomaali waa dad islaan dhab ah oo difaacanaya diintooda xaq ah difaacanaya marka la fiiriyo ciidan macnaheedu waxay tahay qofkaas wuxuu u taagan yahay inuu dhinto waxa siixdeen inaad dalkiina u dhimataan yaad siixdeen kulligeenna haddaan nahay dad wadaniyiin ah oo patriotiga qof walba waa inuu saxiixo
guushu waxay ku jirtaa oo markaad ciidan aragto oo sidaan oo kale u nidaamsan waxaad ku qiyaasaysaa guushiisa inta badan raggii ciidamada loo tababarana waa fadhiyaan waxaad ku qiyaasaysaa kow disciplineka ciidankaas uu leeyahay ciidankaas adkaanshaha uu leeyahay uu adag yahay dhibku uu adag yahay ciidankaas akhlaaqda uu leeyahay iyo kala dambeynta uu leeyahay ciidankaas intuu gaajo u adkaysan karo kow labo caqiidada uu aaminsan yahay waxa uu aaminsan yahay wadaniyadiisa uu aaminsan yahay wuxuu aaminsan yahay xaalad hadda aan ku jirno haddii aan aaminno dalkeena inuu xor yahay waa soo marnay gumaysi oo waa ka horeyna dalkan gumaysi intuu gumaysi ku jiray waa ogeyn dalku wuxuu ku jiray kadib dalku markuu xor noqdayna 30 sano waa aragnay quruxda dalku uu leeyahay iyo midnimada dadku leeyihiin macnaheedu waxa weeye saan u gaarna taas inaan dalkan ka horeyno cid walba ku soo duusha hadda cadawga aan leenahay waa shabaab oo dalkeena ku soo duushay oo ay isticmaalaan al-qaacida oo doonaya halkan inay ka dhigtaan gabaad meel ay ku gabadaan macnaheedu waxay tahay dalalkooda way ka soo tageen dalalkooda burburka waa u soo diideen dadkooda dhimashada waa u soo diideen caruurtooda iskoollo iyo u aadaan nolol fiican ay u haystaan africa hadday ka yimaadeen iyo asia hadday ka yimaadeen iyo hadday america ka yimaadeen iyo meel walba hadday ka yimaadeen soomaaliya u yimaadeen macnaheedu waxay tahay annagayna la soo doonteen burburka annagayna la soo doonteen qaraxa iyo dhimashada iyo dhaawac annagayna la soo doonteen annaguna ka yeeli mayno dalkeena waa difaacanaynaa soo maaha diinteena waa difaacanaynaa soo maaha dadkeena waa difaacanaynaa soo maaha macnaheedu waxa weeye waxaa lidinka rabaa discipline inaad lahaataan anshax wanaagsan kala dambayn amarka inaad qaadato xitaa hadduu amarka khaldan yahay inaad qaadato kadibna aad dacwayso hadduu amarkaas uu yahay amar aan wanaagsanayn laakiin marka hore aadan diidin amarka ninka kaa sarreeya sidaas yaa guushu ay ka dhowdahay tan labaad waa idiin sheegay waa caqiidada oo igu horeyso diinteenna iyo wadaniyadeenna haddaadan wadaniyad lahayn oo aadan aaminsanayn dal oo aan diin aaminsanayn kan diinta iyo wadaniyadda aaminsan yaa kaa guulaysanaya macnaheedu waxaad halkan u timaadeen markaan baaqa idiin diray oo aad ka soo qayb gasheen inaad naftiina u hurtaan macnaheedu waxay tahay waxaad u timaadeen inaad dalkiina difaacataan diintiina difaacataan caqiidadaasaa leedihiin tan saddexaad waxaa weeye tababarka iyo aqoonta iyo qalabka intaasna way bilaabatay oo hadda waa tan hadda markhaatigaan ka nahay oo aad dhammaysateen qaybtii ugu weyneed oo tababarka ciidan uu lahaan lahaa tababarku waa socdaa wax joogsanaya ma aha maalin walba waxaad baranaysaa qaab cusub oo lagu dagaalgalo qaab cusub oo maxaan ku raahdaa ciidanka hawlihiisa ku saabsan laakiin maanta waxaa noo dhammaaday qaybtii ugu horreysay oo ah inaad intiina walaalo tihiin oo waxaa idinka dhexeeya tahay qarannimo wax kaloo idinka dhexeeya ma laha waxaa idinka dhexeeya dalkana wada leedihiin dalkana wada difaacanaysaan qarannimadiina aad difaacanaysaan wax ka hooseeya ma laha maalintii aadda wax ka hooseeya waa maalinta aad aaddo gunnimo kala qaybsanaanshaha midnimo xumada qabyaaladda musuqmaasuqa waa waxyaabaha noo horseeda gunnimada soomaalina gunnimo ma ogola waxaa caalamku hadda nooga horeeyo oo naloo caawinayo hadday noqoto ciidan hadday noqoto dhaqaale oo lagu bixinayo amisom macnaheedu waxay tahay annagu weli isma qaadan isma indha buuxin weli wax khaldan yaa noo muuqday laakiin maanta waxaa muuqda oo soomaali isku raacday inay la soo noqoto sharafkeedii iyo karaamadeedii la soo noqoto waxaynu kula soo noqon kartaa intaas marka aad la timaadaan nabadiidku maanta naxdin yay ku joogaan maanta waa naxsan yihiin maxaa yeelay waxaa xaqiiqa inaad geesiyiin tihiin markaad saddexdaas aad la timaadaan shuruudood waa ka adkaanaysaa maxaa yeelay iyagu waxay ku dagaalayaan xaq ma aha waxay ku dagaalayaan diin difaaci maayaan waxay difaacayaan caqiido shisheeye difaacayaan idinkaa ka adkaanaya marka
maanta waxay ku joogaan nabadiidku naxdin xaqiiqo weey naxdin ayay ku joogaan waxaan noo wada balana kulligeen iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed inaan u istaagno dalkeenna inaan difaacno caruurteenna iyo mustaqbalkooda inaan difaacno soo saas balan ilaahay maaha waa qaadeen Soomaha annaguna waa idin garab taagannahay maaha waa idin hor soconaa waana guuleysanaynaa insha Allah waxaan ka tagaysan taariikh wanaagsan qofkii tiisi dhamaatana jannadiisii iyo naxariistiisu Allah siin caruurteena waxay naga dhaxlayaan mustaqbal wanaagsan iyo sharaf ay kula tartamaan caalamka intiisa kale tababarku waa noo xiran yahay wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh